وحاتري ديار وحان ليه ترينك ياد صارتي ياسك الدجسي ترينك وحاد صارتي قبيل بات صارتي هوسي وهوية انتاد صارتي ياد كدجسي أبقال بات صارتي واد كدجسي وعيس بات صارتي واد كدجسي على قيف باد مريسا مدحويني على قيف باد كتكتي وحاد مريسا حسن شيخ محمود هيرقر قرتاد مريسا gabadh aadi wiilkaagii sodogaagii xaasaskaagii wixii baad hadda maraysaa halkaa ku xidh madaxweyne maadaama aan nahay dad shacab ah oo soo korahaya oo post conflict ah oo kasoo korahaya dagaalkii waxyaalihii loo baahnaa 3 qodob unbay ahaayeen bas kow number 1 dib u heshiisiin maxaad ka qabatay dib u heshiisiintii Soomaaliya qabiil bay isku dishay waana qabiil waay dad qabiil ah waay hawiye daarood dir raxan weyn iyo waxa loo bixiyaa adariska oo dadkan maartay laga tira badan yahay ma arka dad Soomaali ah oo la yasay waay ama heer xamarka ha ahaadeen ama midgaha ha ahaadeen ama tumalada ha ahaadeen waa dad Soomaali ah waa isku mid baana Soomaali baana wadanka naga dhaxeeya dhiiga naga dhaxeeya dadkii noocaas ahaa la rabo inaad dib u heshiisiinta u samayso oo waqti geliso oo dhaqaale geliso horta way ku gaftay okay number 2 Soomaalida waxay samaysatay waxa la yiraahdo federalism inay Soomaalidu heshiis ku ahayn oo shacabka Soomaaliyeed aan cod loo qaadin oo ka imaanin Soomaali gees to gees afarta jiho ilaa ay ku aan xorta ahayn ilaa ay Djibouti Soomaali xuduud ma lahayn kuwan xuduud loo sameeyay hadda adigu madaxweynaha u tahay dib u heshiisiin ma u samaysay maxaa inaga khaldamay maxaanu ku ilownaa maxaa hadda inoo dan ah ma aadan dhihin intaad gora isugu keentay sidii teendadii lagu sameeyay Djibouti carta ma aadan sameynin 5 bilood 6 bilood 7 bilood hal sano teenda inta samaysay Soomaali Soomaaliya keenay dib u heshiisiin ma samaynin aaminaadii iyo trusty ma aadan raadinin waad ka tagtay numberka 3aad madaxweyne meeqa falayd baad samaysay meeshii la rabay inaad fariisato waxyaalaha aan soo sheegay aad rabtay inaad u fariisato dib u heshiisiinta ah number 1 qodobka koobaad ah maxaad ka samaysay meeqa falayd baad samaysay intaasoo heshiis baad gashay Turkiya Eritrea haddii ilaahay kuu soo magol yahay Emirates Qatar United States cetra intaasoo heshiis baad madaxweyne samaysay Egypt ku dar madaxweyne intaas oo heshiis oo maartay iskhilaafsan ama resource ahaato resource heshiis ahaato ama security issue ha ahaato ama social cohesion issue ha ahaato so isma khilaafayaan so masayr ma imanayo marka Turkiga la heshiiso Mareykanka soo khilaaf kama imanayo so caqabad kuma aha marka Egypt la heshiiso Ethiopia soo caqabad kuma noqonayso so ma noqonayno laba maroodi oo dagaalamaysa cawskii lagu dagaalamayso ma noqonayno oo kuma burburayno xalkeena iyo nabadeena iyo maslaxadeena iyo soo koritaankeena xal ma ugu jira yaad weydiisay ra'iisul wasaaraha ma weydiisay golaha wasiirada ma weydiisay baarlamaanka senatorska iyo haddii ay ku soo gol yahay aqalka hoose ma weydiisay ma lagu ansixiyay waa su'aal kula jirta waaye okay dhaqaalaha ku baxay intaas oo flight ay samaysay madaxweyne ma is weydiisay imise iskool baa iyo dhis kartay halka diyaarad raacdo $500,000 kama yara $500,000 kama yara kharashkaaga iyo safarkaaga kama yara okay 100 baad samaysay safar imise iskool bay dhis kartay imise jid bay dhis kartay
imise xarun caafimaad bay dhisi kartay hal isbitaal oo general hospital oo ama ciidamada dhaawacmahaya ama dhimanahaya ama shacabka lagu daweynayo ay samayn kartay imise dib u heshiisiin baa lagu samayn karay waa su'aal kula jirta way madaxweyne ma xisaabtantay maya ama filaya yaad ka ansixisay baarlamaan labada aqal golo wasiir prime minister ma kula og yahay waa su'aal u taal madaxweynaha shacabkuna ay ka jawaabi karaan oo arag ka hayo meesha adduunka maanta ma kala qarsoona madaxweyne okay kasoo gudub resource baa yimid qaybsiga resource maadaama Soomaaliya ay federaal noqotay resource-ka waxaa la heshiisay Mareykan baa la heshiisay okay oo ahaa dowladdii ugu horreysay ee resource-ka Soomaaliya shidaalada ceeladooda qotay ee baadhay ee soo saartay iyo ahayd Norway baa ku jirtay oo statistics iyo daatooyinka iyo kulli haysa maantana Turki baad keentay marka baad keentay heshiis min lagu yahay qaybsiga khayraadka maamul goboleedka kula heshiisan lahaa ma haysaa Puntland gooni bay u baxday Jubbaland gooni bay u baxday South West Hirshabelle hada maxamed runba heshiiska lagu gali yaa qaybsan yaa qaadan mise wuxuu noqonayaa shidaalka la soo saaro sidii kii Nigeria inuu noqdo miyaad rabtaa miyaa oo Soomaaliya isku baabado inta ka harsan intaas ka bax generationka hadda soo kacay ee dhashay laga bilaabo 1990kii ee dagaalka iyo xabadda ku dhashay iyo qaxa maxaad mustaqbalood u haysaa maxaad ballanqaadaad u haysaa okay 2 milyan baa ku nool Europe iyo North America ama adduunka ku nool qaxooti ah ubadkooda ee khasaarayn maalmo la qaataa maxaad ballanqaadaad u samayso u haysaa maxaa soo celin ah maxaa maartay investment oo samayn karaan lagama hayo joogtaas okay 2 milyan baa waxay displacement ku tahay xamar gudaheeda markii laga yimaado 4 state ama 5 state ilaa 2.5 milyan baa displacement ah oo qaxooti ah maxaad u haysaa maxaa horumar u haysaa maxaa plan and strategy oo ay kaga bixi karaan displacement-ga aad u haysaa maada soo bandhigin maada keenin xukuumaddaada prime minister-kaaga golaha baarlamaanka midna ma hayaan okay Kenya 1 milyan baa qaxooti ku ah Dadaab iyo Kakuma iyo Nairobi gudaheeda iyo banaankeeda daadsan investment ku sameeyay maalgelin ku sameeyay bari la dhici karo maxaa shuruuc u haysaa maxaad ballanqaada u haysaa maalba waa la dilaa maalba waa la baadaa madaxweyne maxaad u haysaa ka gudub waxaa tiri Soomaali heshiisa adduunkana heshiis la ah Soomaalida heshiis ma aha adduunkuna heshiis lama aha xukuumad saldhigan oo maaragtay maanta qori isu dhiib ah ma muuqato ayna ka ahayn xukun kororsi ii kordhiya yaan aragnaa okay madaxweyne qodobka ugu dambeeya waxaa waaye waxaa tiri waxaa la sameynayaa one man one vote it's possible today to do that one ma suuragal baa maanta one man one vote inuu Soomaaliya gudaheeda ka dhaco markii shabaab wadankii 60% ay haysato adiguna xamaraad ku sugan tahay Axmed Madoobe Kismaayo joogo qorqor u dhusamareeb joogo Hirshabelle marna xamar uu joogo marna uu Jowhar ya Allah ku joogo lafta gareen uu Jowhar baalkii Baydhabo ya Allah ku joogo oo amnigi uu sugnayn wadankii amnigi 100% uu sugnayn at least hatta 60% uu sugnayn xageed ku qaban doorasho one man one vote okay kama soo qaad okay one man one vote baa sameynaysaa kun qof baad isugu keenta xamar okay kunka qof amnigoodu ma sugi kartaa 100% ma sugi kartaa su'aal aan ku weydiinayo waa madaxweyne warniyahow madaxweynow
adoo karaami iyo sharaftii Soomaaliya huwan أنا waxaan ku dhihi lahaa wadaadkaas ex madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed kilibkiisaan dhageystay hadalka uu ka hadlay madaxweyne qaado waa hadal